Soomaaliya dhageyso hala dhageysto hadalka hala dhageysto Soomaaliya adigoo waqtiga kan la marayo xorriyadaada qaadanaysa oo dhalanaysa waxaad leedahay weji waxaad leedahay magac ilaahay ha ku magan geliyo cimri dheerna ha ku siiyo Soomaaliya adigoo daqiiqada tan dhalanaysa waxaad leedahay weji waxaad leedahay magac ilaahay ha ku nabadgeliyo ilaahay ha ku magan geliyo cimri dheerna ilaahay ha ku siiyo waddaniyiinta Soomaali anigoo idin ogaysiinhaya idinkuna ogaysiinhaya qalbi farax badan ka buuxa dhalashada jamhuuriyadda Soomaali iga aqbala inaan wada jir isku faaninno kulligeen kala sooc annaga oon lahayn oo dagaalka aynu soo wada gallay xorriyada maanta noo dhalatay maanta waxaa dhalanaysa taariikh cusub oo ummadda Soomaalida ah oo ay leedahay taariikhdaas dagaal baynu ka soo marray sidii aynu wadajir iyo sharaf aynu ugu noolaanno taariikhda ummaddayada Soomaalida oo dhallinta yar leh waxaa ka buuxa saad ka warqabtiin dhib badan aynu soo marray yaa laga sheekayn karayaa sugi tiro badan oo aan sugnay baa laga sheekayn karayaa rajooyin badan oo wax badan aan wakhtiga kan sugnay baa laga sheekayn karaya intaasoo dhan ayagoo wada jira waxay ku dhigan yihiin qaluubtayada ayadoo shay keliya ay yihiin maanta waxaynu nahay Soomaali baan nahay maanta waxay nahay xor talada iyadana gacantana inoogu jirtaa wakhtiga kan aan idinla hadlayo waxaad tihiin xor dawlad oo adinka gacantiinna ku jirtaad leedihiin waxaad leedihiin bandiirad iyaad leedihiin waa gallad ilaahay waa inaynu adkaynaa oo aynu dhowrnaa adduunka si wanaagsan nagala jooga hadda oo ummad badanu ay nagala joogto marag ha ka ahaado rabiddayada aad aynu u doonayno aan u rabno inaynu jecel lahay shucuubka adduunka inaan xariir wanaagsan inaynu la lahaanno dhawaq noogu horreeya sidii carruur dhalatay waxaan maqashiinaynaa caalimka nabadgelyo ha heleen oo ilaahay ha siiyo intii lilaahi iyo nabad doonaysa nabad iyo wanaag kulli ah middaasu waa mid duco ah oo lilaahi naga Soomaaliyey meel alla meelaad joogtiinba ila rayreeya oo ila farxa
kuna tashada inaad xooggiinna iyo tabartiinnoon kala harsanayn inaad ugu hillisiin oo aad ku difaacdiin qaymada demokratiyada iyo ixtiraamka ay leedahay nabad iyo xaq ku dhisan horu socodka iyaga ee siyaasadda dibadda ah ha ahaato mid aan khaalifsanayn midda iyada gudaha ah aynu ixtiraamno oo aan xishmayno aynu difaacno hay-ooyinkanaga demokratiyada ku dhisan aynu ku cabbirno xiriirka iyaga ummadaha dibadda naga jira oo caalimka ah middaas aynu gudahanaga ugu dhaqmayno adduunkana dhegaysanaya iminka kan faraxa iyo rayraynta aynu ku jirro aynu marayno waxaynu leennahay oo aan qalbi wanaagsan ku leennahay waa aynu ka dhidhiyaynaa oo aynu waa ka masiiraynaa annagoo ku hadlayna magaca ummadda qaarkeed oo xanuunsanaysa dulli xanuunkii uu hayo xorriyada aynu haysanno aan helnay yaan uga masayraynaa dadka kale aynu u jeedinno wakhtiga kan aan marayno daymo iyo fikro aynu u jeedinno milyoonaadka afrikaanka ah oo ku saxariiraya dulliga ajnebiga dulliga isticmaariga xaqdarradu ay haysato isgarasho waagana ay haysato waxaan u cusboonaynaynaa caalimka oo na dhegaysanaya habarwacid aynu u habarwacayno nabad iyo xaq inay helaan walaalahanaga isticmaarka ku jira ilaa wakhtiga kan oo la rafaadsanayo waa in la ogaadaa inay xaq tahay oo ay wanaag tahay oo adduunka dhan uu ogaado annagu haddaan Soomaali nahay haddaanba ka mid nahay Afrika aan barbar ka nahay waa aynu ka xanuunsanaynaa xanuun geeri ahaana naga haya waxa caalimka ka dhacaya oo lagu haya ummadda walaalahana Soomaaliyey adinka magaciinna yaan tahniyaad iyo shukri u jeedinaya ummadaha wanaagsan oo martida ah oo nagu soo biiray inay maanta faraxa nala jiraan oo faraxaas ay wax nagala qaybsadaan ilaahay ha najeeyo jamhuuriyadda Soomaaliya